ninkan ayaa waxa uu rabaa inuu dacwad ku furo welibana uu maxkamad la fuulo idaacadda BBC-da. So are you still going to the court against BBC? I'm gonna go. dacwadaasoo markaa ay sababan u tahay waraysi idaacadda BBC-da ninkan ay ka qaaday ku dhowaad 20 sano ka hor. So it's a big surprise anyway. A big surprise. haddaba arrintan dhex martay ninkan iyo BBC-da iyo weliba waraysigaasi sheekada ka dambeysay ama siduu isugu soo aaday ayaa haddii aadan horay u maqlin kolay muuqaalkan aan kusoo qaadan doonaaye waxa ay noqon doontaa mid aad iyo aad kaaga qosliso welibana kaa yaabiso. marka muuqaalkan dhammaadkiis waxaa la rabaa xitaa in adiga laftirkaaga aad judge garayso ama aad xugmiso aad tiraahdo BBC-da qaldan ama ninkan aa qaldan. soo dhawaada markaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نصعب شرف بدن سؤال مركل بسؤال مقال كله ولكن صعب كان اسمه نسوي كان كاسيدو كله فيسبوك بيج كهو سبرو مقال كان أترك سوى دقيقة أما البريخسية كهر أنت أون بلابني ورئيسية نين كان واحد أركيسا إن يهبيها معناها إن أولية بيها مكشوك سيا وحماش كالصعدو ما هن علشان قف ورئيسي لقى قاعد جري أما فلنا هي وحسيدة الصعدان لا يركي كاميرا ده هي وحماش كالصعدو نين كان وحي كنت هاي لياب شكذا وحي عدي سديد بيش الشناد أما بيش ماي sanadkii 2006 ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Guy Goma waana ninka soo jeeda wadanka Congo waxbarashadiisana waxa uu ku soo qaatay wadankiisa Congo laakiin markaasi ilaa iyo hadda waxa uu ku nool yahay wadanka UK. Guy Goma oo markaasi shaqo raadiye ahaa ayaa waxa uu shaqo u dirsaday ama uu apply gareeyay idaacadda BBC-da waliba qaybaheeda yani nadiifinta kombiyuutarada iyo waxyaabahaasi maalintaasi ahayd 8 May 2006 waraysi ayaa loo soo balamiyay qaybta markaasi lagu balmiyay in waraysigiisa shaqada lagu qaadana waxay ahayd qaybta wararka ama News 24. ninkan meeshii shaqada markuu yimaaday ilaa shaqada dad badan maadaama ay soo apply gareeyaan waxa loo sheegay markaa in qolka sugidda uu ku sugo ilaa ay magaciisa looga yeero oo maaragtay si isagana markiisa waraysiga looga qaado. ninkan oo booskiisa iska fadhiyo oo sugayo ayaa daqiiqado kadib waxa uu yimid nin markaas uu magaciisa ku dhawaaqay oo wuxuu yiri Guy. ninkana wuxuu arkay in magaciisa lagu dhawaaqay sida darteedana gacanta u taagtay oo wuxuu yiri waa aniga sidii ayay ninkii isku raaceen oo ninkan markaasi wuxuu u maleeyaa in loo wado qolkii waraysiga yani isagoo filayo hal qof laba qof saddex qof waxay noqotaba si markaasi waraysiga looga qaado. taas marka waxa raacday ninkan sidii loo waday waxa la geeyay marka qolkii production-ka oo maaragtay kaamiradihi isdiyaarintii waxyaabahaasi oo dhan. ninkan markii uu fariistay wali uu yaaban yahay wuxuu isleeyahay wax meesha ka socda maxay yihiin. haddana meel kala gooniya looga yeeray meeshii markii uu galeen haweeney qurux badan ay timid uu yiri oo makeup ii sameeyay ninkan wali wuxuu isleeyahay interview caadi laga qaadayo shakadan maxay tahay maxaa lagu qurxinaa makeup iyo waxyaabahaas maxaa lagu sameeynaya meeshan maxaa laga la soo doonay. haddana isagii isku laabanaya sidaan isleeyahay wuxuu isleeyahay kulay BBC maadaama aad u shaqeyn doonto waxa waa wax walba qaabkan ay maaragtay ka dhigayeen ama sidaan ay wax u sameeyaan oo kale. waxa sii raacday markaa ninkan in saxafiyad uu yaqaanay oo BBC-da u shaqeyso oo la yiraahdo Karen Bowman miya waxaas ah in ay soo hor fariisato kadibna layrarkii la shiday kaamiradihi la bilaabay markaasi in la rool gareeyo waxaana loo xiray microphone. markaas haweeneydii saxafiyadda ahayd hadalkeeda waxay ku bilowday markaasi inay ka sheekeyso ninkan iyo waxa maanta waraysigiisa uu ku saabsan yahay iyo waxa uu ka hadli doono. su-aasha inta la weydiinay laakiin waxa meesha soo galay introduction ninkan loo sameeyay oo welibana uu ugu horeeyo magaca ayaa wuxuu noqday markaa Guy Kiwney. Guy Kiwney ninkan magaciisa waa Guy Goma معناها markii ayuu fahmay sheekada inay qaldan tahay. hadda meeshaas markay marayso ninkan iyo waxa uu sameyn doono iyo su'aasha la weydiiyay abku uga jawaabayo waan u soo laabanaynaay waa kuma Guy Kiwney. Guy Kiwney waa nin cadaan ah oo waliba Ingiriis ah geeriyooday sanadkii 2009 yani waa 3 sano kadib dhacdadan markii ay dhaceysay. waxana uu ahaa saxafi dhanka teknolojiyada ah oo maaragtay aad iyo aad uga warhayo arrimaha teknolojiyada. maalintaasi 8 Mayna waxa uu Guy Kiwney meesha idaacadda BBC-da qaybteeda 24 news ugu balansanaa inuu maaragtay warbixin idaacadda BBC-da ka siiyo dood sharciyeed oo markaasi dhex taalay Apple Corpus iyo Apple Computer. sida aad fahmi karto kale labada magac waxa isku keenay ama labada magac la isku qaldan waxay noqon kartaa marka aqoon yari iyo waliba qolka sugitaanka oo ka dhaxeeyay. ninka loo soo diray Guy Kiwney inuu soo wado markii uu soo galay labada magac oo iswato ma uuna sheegin kaliya wuxuu ku dhawaaqay magaca hore ee Guy. ninkan Congolese-ka ahna waa taqaanaa anaga Afrikaan hadii aan nahay waxa waaye indhadeegana uu iska badan yahay moona hubsanin oo Guy marka la yiri waa anigu yiri gacantu taagtay sidoo uu waday marka waxa uu geeyay saxafiyadii waraysiga sameeynaysa. hadaba marka saxafiyada Karen markay leedahay Guy Kiwney waxa uu maaragtay editor u yahay website oo arrimaha technology ka hadlo oo la yiraahdo News Wireless. ninka marka
introduction kaasi loo sameynaa inuu naxsan yahay aniga maahan uu leeyahay. Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. kadibna saxafiyaddii markay aragtay ninkan inuu si u yaaban yahay ayay waxay tiri yacni qaabkan ama yacni sida ay maanta waxay yihiin macnaha ma la yaabtay. markaas wuxuu leeyahay macnaha aniga intaan mar rajaynayn la yaab ay igu noqotay uu leeyahay macnaha aniga waxaa la ii sheegay in interview aan leeyahay laakiin macnaha intaani way ka badan tahay. isaga markaas ahaan ugu fahmay marka inay wax qaldan yihiin laakiin jawaabtiisana xitaa weli waxa uu ku saleynayaa yaabkiisa. kadibna waxaa loo galayaa markaas su-aalihii ka mid ahaa wareysigiisa oo waxaa la leeyahay sidee wax u aragtaa yacni dadka ma u malaynaysaa in weli download kale ay sii sameynayaan. welina waxa uga jawaabayaa yacni su-aasha iska dulmar oo kale. macnaha adiga si kastay ahaato ninkan wareysigiisa inkastoona loo soo gaabshay sidii ayuu uga lagu baxsaday macnaha saxafiyaddii oo yaaban oo isleh macnaha ninkii dhan oo wax fahansanaa titlekaas dhan haystay oo maaragtay haddana sidaan u hadlayo hadalka usoo gaagaabinayo oo u eg macnaha waxa uu sameynaya inuusan ogeyn maxay tahay oo kale iyo ninkan oo yaabanayo markii hore islahaa meeshan qaabka lagala dhaqmo maxay tahay oo kadibna ogaaday in meel qaldan u dhex fadhiyo ayaa waxay noqonaysaa marka in sidii wareysigii uu ugu dhammaado. Guy Cuny dhabta ahaana maadaama Guy Goma uu booskiisa galay uu iska fariistay waxna kama ogeen barnaamijkana maadaama uunan live toos ah una ahayn yacni marka la qaaday kadib ayay noqotay markaasi in dib laga ogaado. wareysigii markii uu dhamaaday kadibna ninkan wuxuu yidhi waan u sheegay in qof qaldan ay wareysiga ka qaadeen. sidoo kale Guy Goma markii uu wareysigaasi soo dhamaystay uu qolkii wareysiga ka soo baxay 20 daqiiqo kadib waxa uu maray wareysigiisii kale oo shaqadiisa caadiga ahaa. idaacadii BBC-dana markii ay ogaadeen in wareysiga ninkan laga qaaday inuu qaldanaa waxay sameeyeen marka ninkii ayay haddana mar kale wareysteen oo arrimihii ay ka wareysteen laakiin labadii wareysiba ma aysan soo gelinin hawada. yacni maadaama khaladaadkaasi waxaasi ay dhaceen hawada ma aysan soo gelinin way iska daayeen. laakiin BBC-da ayaa waxay samaysay in mar dambe ay ma aragtay dee footage-kii ama muuqaalkii ay soo gelshaan ayagoo markaa sheekadiina soo raacshay yiri ninkan hadda ka hor sidaan ayuu sameeyey oo ma aragtay dee wareysi qaldan ayaa qaabkani uu u dhacay. muuqaalkaasina wuxuu noqday markaa muuqaal aad iyo aad xiiso u leh oo ma aragtay dee dad badan ay daawadeen. kadibna dhanka Guy Goma ahaan markaan u laabano wuxuu sheegay in shaqadii aanu helin. markii la weydiiyeyna sababta uu shaqadaasi u helin inay qayb ka tahay maadaama wareysigaasi qaldan laga qaaday wuxuu yidhi way ila tahay yacni macnaha maadaama dhinac qaldan ay iskaga soo dhawaadeen ama iska galeen oo kale. markii la weydiiyey maalintaasi wareysiga gudihiisa markii aad dareentay inay wax qaldan yihiin oo aad fadhido macnaha meel aan lagugu targelin maxaad si toosa ugu dhiibeyday aniga mihi yacni sheekadaan hala joojiyo. markaas ayuu wuxuu yidhi hooyaday ayaa waxay ii sheegtay ama igula dardaarantay haddii aad meel ku tagto hab qaldan isku day inaad u saxdo si positive ah. macnaha hore ka istaagin waa ka dhihin meeshan aan la iguma talagelin oo kale laakiin qaabkaasi u sax. taas waxaa sii raacday marka muddo 7 bilood ka hor ah ninkan muuqaal ay maaragtay dee wiilal kale ay wareysanayaan oo kasoo muuqday ayuu wuxuu sheegay markaasi in BBC-da ninkan uu xaq uu ku leeyahay kaasoo ah markaa in ku dhowaad muuqaalkiisa ay haysteen ama ay isticmaalayeen 20 sano isagana wax lacag ah ana lagu siinin. It was the man that met on it and they didn't give me any single penny. maadaama yacni hadduu isaga ahaan lahaa qofkii wareysiga laga qaaday oo arrinta ka warbixinayo ama attention ku helay ama wax kaleba sidii kale ayay ahaan lahayd. laakiin maadaama BBC-da muuqaalkiisa u isticmaaleen madadaalo sida darteedana ay noqonayso inuu lacag badan soo xareeyo wuxuu yidhi muuqaalkaas aniga BBC-da xaq ayaa ugu leeyahay xitaa waan la xiriiriyey yiri markii aan la xiriireyna iima ayna jawaabin oo maaragtay way iga aamuseen. sida darteedana wuxuu yidhi BBC-da waan dacweyn doonaa lacagteeda ayaan ka rabaa. marka aad fiiriso uma eko nin oo kale dacwad qaadi rabo ama waxaasi ay dhab ka tahay. ugu dambeyn marka la weydiiyey marka xilligan ahaan waxa uu sameeyo ama waxay shaqadiisa tahay waxa uu sheegay inuu ka shaqeeyo xarun maaragtay dad leh xaaladaha maaragtay waxbarashada inay ku adag tahay. tan ugu dambeysana marka la yiraahdo maxaad qorsheynaysaa ka sokow dacwadda iyo waxaasi waxa uu sheegay marka inuu ku tala jiro inuu buug qoro oo uu magac darayo macnaha wrong guy macnaha qofka qaldan ama meel qaldan tagay. waxaan u maleynayaa dabcan si faahfaahsan haddii uu qoro laxdadaasi iyo maalintaasi sidee wax u dhaceen iyo wixii ka dambeeyay iyo inuu noqon doono markaasi buug aad iyo aad u xiiso badan oo isagana dee waxyaabaha uu BBC-da ka rababa dhankiisa ahaan uu kaga heli doono. taasaan u rajeynayaa. intaas marka laga soo tago adiga ahaan marka maxay kula tahay yacni xaaladaas ahaan marka la dhooninkan
يعني بي بي سي ما كقلدان مسيسا قلدان سيدا أديك أنا وحوا عبر الله دمانتين وما سنتين أنتم مقال كان داوتين إن شاء الله أنتم مقال كان كل دنا واحد كي تجاه نبض هذا